kulanti wanaagsan tixanaheena maanta dhiganaha waxay adeegsadeen isbarbardhig iyaga oo ku hagaya xulashooyinkooda qowmiyadeed ee ku habboon in loo tixgeliyo marxaladaha taariikheed ee hore. sidaa darteed qubrada qadiimiga ah ee qodanaya goobaha Paleolithiga waxaa la adeegsan jiray taariikhdii dhagaxa taan waliba meesha imika la yiraahdo saxaraha kala haray ee koonfurta Afrika ama Savannah, halkaasi ay ku nool yihiin bulshada la yiraahdo Bushman. sidani oo kale waxaa loo maleynayaa in ay ku nool yihiin si aad ugu agdhow kuwii aadamihii hore. markii ugu horeysay reer Yurubna waxay ogaadeen in waqtiyadii hore iyaguna ay ku noolaayeen siyaabo la mid ah dadyooga Afrikadii hore. tixanaheena maanta aad ayuu u kooban yahay, waayo dhiganaha intay ugu muhiimsanayd ee cutubka uu ka hadlayay ayaan soo qaatay. inta tixanaha saddexaad iyo maalinta xigta aynu kaga kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa maalin wanaagsan. haddii ay tahay markaagii kuugu horeysay ama aad xiiseynayso inaad la socoto tixanayaasha ka warramaya arkeolojiyadda Afrika iyo dhammaan arkeolojiyadda adduunka ka warramaya rukumo janalka mahadsanid. inta ka horeyso nabadgelyo ayaan idinku dhaafay.